تقلع عوق دالك اسماعيل عيسى محمود مدن مدحوين وكسو دhow degmada xar dheer halkan waxaan kugu diyaar cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska korkor ururkeeda saddexaad iyo ururkeeda lixaad يلا بوليس ماشي حل اللي هو رعبسو هاي waxa uu ahaa taliyaha ciidamada koofiyad casta in ka badan 700 oo askari ayuuna xukumay waxa uu ku sugnaa degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu ahaa geesi aan ka banin ugu dambeeyna lagu dilay halkii uu ku sugnaa sidii uu argagixisada ula dagaalamayay cadawga jabi u lahaa ayaana halkaas lagu dilay ninkan ka hadlayno waa taliye Ismaaciil Tuuryare oo maalmo ka hor ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe Tuuryare waxa uu ka soo dagaalamay gobolka Galgaduud sida Ceeldheer Xaradheere iyo degmooyin kaleeto waxaana lagu tilmaamaa inuu ahaa shakhsi aan gabanin geesi ah ugu dambeynna ku shahiiday dagaalkii degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe arrimaha la yaab kale laakiin aan u soo qaatay ba waxay tahay Allah u naxariistee eheladii iyo qaraabadii uu ka tagayna samir iyo iimaan Allah ka siiye 4 maalmood kadib ayay dawladda federaalku shaacisay in la xaqiijiyay geeridiisa maalintii degmada aadan yabaal dagaalku ka dhacay baraha bulshada waxaa la soo galiyay oo waliba eheladiisa qaar kamid ah ay soo galiyeen inuu geeriyooday taliya Tuuryare balse dawladda federaalka iyo saraakiil kaleeto waran laga soo xigtay ayaa ku tilmaamay been abuur oo beeniyay warkii sheegayay in taliya Tuuryare uu ku geeriyooday dagaalkii degmada aadan yabaal ee kooxda argagixisada ay kula wareegtay muuqaalkan waxaan ku soo koobi doonaa taariikhda iyo sidoo kaleeto dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal taliyaha ku geeriyooday askarta kale ee iyagana sidaas si lamida ku geeriyooday iyo waliba taliyaal kaleeto oo dawladdu wali aysan shaacinin in ay ku geeriyoodeen dagaalkii degmada aadan yabaal xaaladda degmada aadan yabaal iyo waqtigan xaaladda guud falalka argagixisanimo ee kooxda argagixisada ay ka sameeyeen dad shacab oo ay ku qalqaleen iyo xaalad adag oo ka taagan degmada aadan yabaal iyo guud ahaan gobolka Shabeellada Dhexe ayaan iyadana soo qaadan doonaa hadduu alla idmo waxaan dhinaca kale rabaa mid iyo labo inaan ka dul istaagno sababta dawladda federaalku ay u qarinayso geerida saraakiisha iyo sidoo kale ciidanka kale ee ku shahiiday dagaalka argagixisada iyadana waa soo qaadan doonaa hadduu alla idmo soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina nula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownaa taliya Tuuryare taliye Ismaaciil Tuuryare ilaahay ha u naxariistee maalmo ka hor ayuu ku geeriyooday degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe waran maalintiiba soo baxay ayaa sheegay in taliye Ismaaciil Tuuryare uu ku geeriyooday dagaalkaas isla saacado kadib saraakiil iyo sidoo kale mas'uuliin waran laga soo xigtay ayaa warkaasi ku tilmaamay been abuur waxa ayna sheegeen inuu nool yahay taliye Ismaaciil Tuuryare taliye Ismaaciil Tuuryare waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah da'yara 26 ilaa 27 da'diisa lagu qiyaasay sida sanad ka hor la shaaciyayna 25 jir ba ahaaba haddii uu isku soo duuduubo ugu bata 27 jir ah taliyihii ciidamada koofiyad casta in ka badan 700 oo askari ayuu xukumay degmada aadan yabaal buu ku sugnaa waa dagaalamay ugu dambeynna tiisi baa ku gashay oo meesha lagu dilay oo halkaas uu ku geeriyooday dawladda federaalka marka waxaa laga rabay ninkan waajibaadkiisa uu guto horta meel cidla kuma dhimanin waran kale sheegaya de waa shirqool iyo waa la shirqoolay iyo waa jiraan oo hadee tuhno waa jiraan laakiin si kastaba waa la dilay oo waa geeriyooday taliya Tuuryare cid arkaysay in dhabarka lagaga dhuftay iyo in dabada lagaga dhuftay iyo in madaxa lagaga dhuftayna ma jirto wixii la sheegaana waa tuhunna ma rabina halkan kaga hadalno arinta dawladda aan ku haysto ee la yaab kala waxay tahay sababta dawladdu ay u shaacin weyday maxay tahay taliya Tuuryare waa shahiiday arintu uu dhaartay ee kitaabka quraanka umray buuna ugu dambeyn ku dhintay nin ciidan u ahaa ciidanna de waxa weeye waa sargaal hadanana sargaalkana waa la dhaariyay kitaab quraan uu maray inuu dalkiisa difaacayo oo cadawga ka difaacayo oo dadkiisa difaacayo oo bulshadiisa xaq waxa weeye daacad ugu adeegayo ayuu u dhaartay oo kitaab quraan uu maray ninka marka sidaasa hadduu de marka ku dhinto furin dagaal buu la joogay oo isaga naftigiisa ana geeri ama noolal labadaas buu ku taagnaa ama geeri ama noolal qofkuna mar buu dhimanaya
marka dhimashadu ceeb ma saraakiil badan baa dhimatay oo dagaal ku dhimato fara badan oo isaga ka darajo saraysay kuwa ka darajo hooseeyey kuwa la darajaa ayaa intaba dhintay arrinta marka la yaab kala waxay tahay war sargaalku waa dhintay dagaal buu ku dhintay waa sax maxaa loo qariyay 4 maalmood kadib in dawladdu ay shaaciso tiraahdo ninka geeridiisa waan xaqiijinay waa mas'uuliyad daro waa mas'uuliyad daro waa cadaalad daro waa dulmi gaf bay ku tahay wiilasha Soomaaliyeed ee ku geeriyoonaya furimaha hore ee dagaalka waa khalad dawladdu qaladaadkeedu aad buu u badan yahay sargaal dhintay in la qariyo la yiraahdo qariya 4 maalmood kadib baraha bulshada la soo galiyo la yiraahdo ilaahay ha u naxariisto sargaal geesi waxa weeye waa uu shahiiday waan xaqiijinay geeridiisa adeer waa mas'uuliyad daro dawladdu mas'uuliyad ma hayso way ceebowday way fashilantay qofku markuu fashilmana waxa lagu gartaa wax walba oo xaq muwaadin u lahaa ayay duudsinaysaa حق مواطن ولا مرحوم كحق وحولها إلا باهيو أولا شيغو أولا ويني نكا إنو شهيدي سرقال نلكيس أشهيدي أوياي إسلام مالنتي دقيقة لها إلا شعيهي واي لو شاعي واي نكا سرقالك dadka shacabka masaakiinta ay banaanka loo ordayaan waa la dilay anoo kama hadline waxaan sugaynaa warka dawladda ay ka soo saartay maxaa loo qarinay maxaa inta loo qarinaya maxaa eheladiisa looga qarinaya maxaa caruurtooda looga qarinaya maxaa waalidkii dhalay iyo dadkooda looga qarinaya oo loo leeyahay wuu nool yahay maxaa umada loo marin habaabinaya war ma sargaal baa qarsoomaya askari baa qarsoomaynine ma sargaal dhan baa qarsoomayo in ka badan 700 oo askari xukuma oo ciidamadii hadana koofiyad asda hogaamiyahoodii waa ayaan daro markay tadalag sargaalkaas waxaan leenahay dawladda federaalka dulmiga marxuumka loo geystay halla cadde waxa weeye raaligelin laga bixiyo umada Soomaaliyeed oo dhan ha laga raaligeliyo umada Soomaaliyeed oo dhan taas aan leeyahay eheladiina ha loo tago magdhow ha la siiyo ninkaas dilka kooxdu ay dishay waxa ka daran qarinta la qariyay ee meydkiisa la qariyay taas baa ka daran qarinta geeridiisa la qariyay baa ka daran askarigaas si xun baa loo dilay waran hoose waxay sheegayaan isagoo dhaawaca in la qabtay inay kooxda argagixisada ay tiri nagu soo hag meesha waxa weeye aad joogtid waxa weeye ciidamada waxa tiraahdaa dhulka waan qabsanay argagixisada waan jabinay soo rogmado halka imaada ku dheh oo noo soo gacan gali asagana intuu la hadlay uu yiri markuu furtay baalkii uu furtay toolayihii uu furtay wuxuu yiri war cadowgu baa ay qabsadeen carara meesha aaga ka fogaada buu yiri saasay ku dileen baa leeyahay oo ay ku sii dhameystireen si kasto ay noqotoba dawladda dagaalkii degmada aadan yabaal waa looga adkaaday kooxda argagixisada bana la wareegtay intii ku dhimatayna shahiid baa in ilaahay u naxariisto inta ku dhaawacantayna allah u boogadhayo laakiin askarta la yaabalo waajibkood bay gudanayeen dawladda laakiin waajibkeedii way gabtay waajibkeeda waxa weeye ka dhaawaca in dhaqso la qaado ka dhintay in durba loo tacsiyay eheladii sida Puntland hadda ay sameynayso Puntland wada aragteen askariga marka dhintaba eheladiisa iyo qaraabadiisa loo diraya wiilkaadi waa dhintay sabir iyo iimaan waa loo tacsiyeynaya waa loo tagaya qaafi abba loo aasaya si wanaagsan baa loo duugaya waa la iskugu imaanaya qofka waxa weeye waalidka waa sabraya marka iyo eheladu waa sabraya saasoo kala la rabaa dawladdu inay samayso haday sameyn karin dhalinyarada yaa la shirqoolina dagaalada furimaha dagaalka laga daayo anigu aad ugu dheeraan mahayo walaalkeen ilaahay jannatul firdaws asiyo warar kala jiro oo aad u fara badan oo baraha bulshada waxa dhacayo wax caadi ma shirqool baa lagu dilay waa meel baa isaga godaan lagu shirqoolay dhabarka lagaga dhuftay waa la dhiibay koox baa lagu soo hogaamiyay waxa soo dhan waa baraha bulshada ku jira laakiin anigu halkan marin mahayo oo hawshaas hawl baaritaan u baahan oo in la dabagalo u baahan way arinta dawladdu ay ku khaldantay kaliya ee cad waa baahin la'aanta iyo sheegis la'aanta marxuumka inuu geeriyooday oo uu shahiiday oo kooxda argagixisada ay dishay in la sheegi waayo ayaa cad oo banaanka taalo oo aan gabasho lahayn marka dawladda waxaan leenahay hadday sidan aad ku sii socotaan maalin dhow wasiiraha intii la laayaan la sheegi doonin
way kasii dari doontaa way xumaan doontaa meel xun bay gaari doontaa ummadda soomaaliyeedna intay waxa weeye ay kalsoonidii ka dhammaato ayaa bannaan cidraa layniiga tegi doonaa marka xukuumadda waxaa leeyahay wax ka bedela waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho degmada aadan yabaal weli kooxdii argagixisayd baa gacanta ku haysa dadaalaha socdo la doonayay in dib loogu soo celiyo gacan ku haynteeda ee sidii kooxda argagixisada looga saari lahaa iyadoo dhanka kalena kooxda gacanta ku haysa hadda ay dhibaato xoogan ka geysatay dhowrkii maalin ee ay gacanta ku hayeen in ka badan 6 qof oo shacab ah ayay bartamaha magaalada ku gowraceen oo rag iyo dumar iskugu jira oo ay ku tuunsan yihiin in ay la shaqayn lahaayeen ciidamadii dowladda ee halkaasi ku sugnaa dhegta ayaa dhiigga loo daray weli waxaa socda gowricista qofka oo la soo qaban oo madaxa laga goyn bash qofka oo la soo qabaa bartamihii magaalada shacabku waa kala cararay intii cararay kartay wax yar baa magaalada ku soo haray intaana lagu badan kuma taagna wadaday ka bixi lahaayeen bas ay sugayaan oo la raadinaya magaaladii degmadii aadan yabaale intaad aragtay leekay waa laga kala cararay dee waraaba bahal aan waxba dhaafaynin baa soo galay marka dowladii dhufayse waaweyn bayna ka qoteen dowladiina ciidamadeedu kaabigay u saaran yihiin oo tallaabo qaad u baa u dhiman waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla idmo